بسم الله. magacaygu waa deeqa aadan muuse deeqa afro. waxaan fiidiyowgan duubayaa 12 bisha 7 2017 maalin jimca. waan salaamayaa dhammaan inta fiidiyowgan daawata ama dhageysan doontaba. waxaan inagu salaamayaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxaan rabaa halkan inaan kaga hadlo arrin aad iyo aad muhiim igu ahayd runtii. aan muddo badan ka fikrayay ilaa yaraantaydii ilaa haddaba ilaa markasta aan aad uga fikri jiray. waan dareensanahay runtii in kuwo badan oo idinka mido runtii aan ku yara aragti duwannahay, laakiin muhiimadeedu waxay tahay horta anigu waxaan rabaa inaan soo gudbiyo taasaa anaga aad igu muhiima. sidaan la soconaba adduunyadan waa lagu soo kala horeeya waana lagu kala dambeeya. aniguse waxaan hadda maanta halkan usoo fadhiistan codsanayaa waxay tahay in ilaahay subxaana watacaalaha maalintuu i oofsado, oo kolley dadna waa iga dambeyn doonaa, dadna waa iga horeyn doonaa, wax iska caadiya. laakiin anigu waxaweyaan waxaan codsanayaa maalintii ilaahay i oofsado ee ajashaydu dhammaato ee aan dhinto inaan wax qabri alle ii qodin, inaan lay aasin. arrintan waxaan ka fekerayay runtii muddo aad iyo aad u fara badan. dhinaca diintan ayaan la iila cararin markiiba, sababtoo ah waxa weyaan diinta islaamka oo aniga aan ku dhashay ee aniga aan jeclahay ee aan ku dhiman doono insha allah si wanaagsan uma aqaano. ilaahay subxaana watacaala ha ii kasto inaan si wanaagsan u barto insha allah. mana garan karo runtii culayska ama cadadka ay ka qosayn karta arrintan. runtii anigu ma garan karo, hadda mid ii cabiran ma aha. dhinaca diinta weli kuma eegin, laakiin dhakhaatiir badan baan la xiriiray. arrintan macnaha waxaa ka suurtageli karaa, waxaa ka macquulka ah, siday u dhici karto. waxaweyaan runtii inkastoo dhakhtarkii ugu dambeeyey runtii uu iniyad jabiyey oo igu yiri adiga waxaad ka baqaysaa qabriga iyo waxaad ka baqaysaa dhuwa xabaalo, laakiin isagu siduu ii sheegay in isagu maxaa la yidhahdaay uu saxiixay markuu isagu dhinto in la gubi doono. subxaan allah. marka aniga ahaanteeda fikradeedu waxay tahay iyadoon wax diin ah meesheeda loogu tegin oo la ixtiraamayo oo maxaa la yidhahdaay aan diinta meesheeda loogu tegin, haddana in fikrad ahaan iyo maxaa kore system ahaan bal waxa arrintan ka suurtageli karaa in la eego. adduunka maxaa la yidhahdaay dhul la-aan kama jirto. adduunka dhul badan baa iska bannaan. dhul kasta wuxuu waddan kasta wuxuu leeyahay dhul aad u tiro badan oo lama degaana oo meydka la dhigi karo. meeshii laga aasi lahaa in meydka meeshaas la dhigo. dhul kasta waddan kasta dhulka ka bannaan in meydka la dhigo. haddi kadib xitaa haddaa fiirisi systemka ay wax u socdaan, waxa weeyaan dadka haddaad eegtid dadka sii gaboobaya iyo dadka soo dhalanaya, runtii waxaad moodaa dadka sii gaboobaya inay aad u tiro badan yihiin oo runtii ay aad u yaraatay dhalmadii iyo tarankii inuu hadda kadib xitaa aad isu yaraan doono. khaasatan hadda waddamadan reer galbeedkaan joogno inuu aad wixii isu yaraan doonaan. halkaasna ay fursad tahay oo runtii ay kasoo bixi karto dhul aad u tiro badan oo dadka dhinta la dhigo ama lagu kiib gareeyo meeshii laga aasi lahaa. qaar baa oran doona talow culayska soo food saaray ay ka sheekeynaysaa waa maxay. runtii anigu alxamdulilah rabbilcaalamiin waan caafimaad qabaa, laakiin soomaalida waxay tiraahdaa wixii aan la huraynin horaa loo qabsadaa. marka aniga waxay iga tahay wixii in horey loo qabsado unbay iga tahay, waana waxaan la huraynin, waana wax aniga igu taagan inaan wixii aniga fikirkayga aan ka dhiibto, maadaaba waxaan anigu rabo weeyaan. anigu waxaan kasoo horjeedaa oon halkaan usoo fadhiyaa ma rabo qof kasta oo iga geeri dambeeya arrintan qusaysaa
anigu in lay aaso diyaar uma ahi. qofkasi markuu intuu nool yahay ayuu magaranaysaa wax ka hadlaa, wax codsadaa, wax dhihi karaa. inkastoo aanan rajo aada u fiican aanan ka qabin, oo xitaa aniga hooyadii i dhashay oo adduunka ilaahay iigu jecel, yaraan baanu ahay hooyaday, labada andhood bay ga jeceshahay, cimrigeeda ilaahay ha raajiyo. haddi kahor maraan weydiiyaan ku yidhi anigu hooyo ma doonayo haddaan dhintay in lay aaso. waan ka dhaadhicin kari waayo. waxay ugu tiri maa waxaa ka baxo dad iga horreysidna waan ku asturayo. awalna maxaa la yidhahdaa aan qofba mar farta ka xiri jiray, walaalo dad iga nolol dambeysad u sheeg dadka qabriga nebcahay yaa lay gelin. laakiin hadda maanta anaaba halkaan la soo fariistay, ilaahayna taladan saaranaya insha allah inaan lay aasin, oo aan dhulkaas anigu hadda aan ku dul qorxoonahayo, aan ku dhashay, aan ku qurux badanahan joogo hoostiisa inaan lay gelin baan ilaahay ka barya. dadka waxaan aad iyo aad ula yaabaa dadka xabaalaha inta soo kala yaacaan. mar allaala marka qofku dhintaa waxaad arkaysaa waxsa usoo kala ordayo meelka yimaadaan la aqoono ma jarafadiya balaayi. horta waxay wax ku xabaalaan xagee u yaalaan. waxaan dhihi lahaa naxariis darrada iska daaya. qofku markuu dhinta xal kale hala keeno. waxa weeyaan anigu hal gabar hadday imaydho is okay. xitaa dadka mayra intay soo kala cararaan bay maxaa layidhaha dadka isugu tagaanoo jiidaan dadka meydka ah. anigu waxaasoo dhan ma rabo. barafuunada iyo cadarada aadka u udgoonna ma jecliya, yaan laygu shubin. surkana yaan layga xirin. qabrina yaan lay gelinin. qofkii qabri iyo qoda qabri i geliya maalinta yoomal qiyaamaan haystaa ma cafiin. ajar iyo xasanaadna ka heli maysid xabaashayda. qofkii ii soo ducaynaya ama si wanaagsan waxa weeyaan ii wanaajinaya deeskuud. laakiin in aniga lay xabaalo oo dad ciidigu wajiga iga shushubaan ma rabo. subxaan allah, ilaahay baan ka magan gal. ilaahayna waxaan dacwo kaga ahay dadkiisa iyo qabriyada. anigu khaasatan waxaa ninkii qofki wuxuu yidhi, qof baa yiri baa layidhi qof aniga yiri dad iska reeb. anigu waxa weeyaan arrinteeda aan ka hadlaya waa taas. ma rabo in lay aaso. dhul qurux badan baan ku dhashay. waxa weeyaan xitaa dhulka aadaan cabirto oon dhulkayga aan dib ugu noqdo, meesha aniga aan ku dhashaan jeclaan lahaa in geed lay saaro. anigu waxaan ku dhashay meel booq la yidhaahdo dhinaca Etoobiya ah, hooyo ku dhalatay. aabahay buuhoodu ku dhashay. dhulkaas aan sheegaya dhul aada u kala fog ma aha. dhul maxaa la yidhahdaa hawd aweeye, geedo badan leh, roob baa ku da-a maalin kasta maasha allah, waa cadar kulayl male. dhulkaas geed halay saaro. qofkii iga dambeeya ayay arrintan qusaysaa. aniga ilaa xabaalo ma rabo. ilaahay baan ka magan galay. ajar iyo xasanaad ka heli maysid. dadka xabaalo waxaan oran lahaa naxariistu ha idigu soo duxdo. weligaya allahi xitaa dhurwacyo yaroo korkayga saaran xitaa gacanteyda uma quuro inaan ku dilo. iska midaa qof la xabaaleen. wallaahi wixii dusheeda saaran cayayaan taan qof inaan dhahmaane inaa xitaa gacan ku taabta lagama yaabo. naxariistu ha idigu soo degto. dadka yaan la xabaalin. xal kale hala keeno. maxaan ku dhahata arrimaha diintii waxayaan la ila cararin, yaan markiiba la ila boodin. arrinteedu saas weeye, way caddahay. waxa aan nebcaan ka hadlayaa, waxa aan rabin baan sheegayaa. ajariya xasanaad ka heli maysaan. qofkii maanta iduuga oo maxaa la dhahdaa ila soo kala wajiga ciidi iga shuba, ilaahay baan ka magan gal. surkan ayaa mara la iga xidho, waa necbahay. ajarna ka heli maysid. haddaan idiin sheegaya maalintaa dhinto ajar iyo xasanaad toona ka heli maysaan. aqranada haystaa dadi aastaan oo qabrigaas dhulkaas hay gelinina. geedkaas halay saaro. dhulkaa geed halay iga samro. xaafadahaas halay geeyo. meesha aan ku dhashay irjiciil al-azali may carabta oran jirta xagga halay geeyo. wayd ka codsanayaa qof kasta oo iga nolol dambeeyaana arrintaas qusaysaa. video wuxuu qusayaa maanta halka la fadhiya. qof kasta oo iga nolol dambeeya, qof kasta oo iga nolol dambeeya oo aniga videogaas daawado, kan daawan ma qusayso, laakiin kii videogaas daawado oo aniga halkaas anoo soo fadhiya ee arkow
maalintii aan dhinto waxa weeyaan asxaabtana waxaan leeyahay haddaba igu yidhahdaa deeqa adduunka kaala kusoo wareega xaggan iyo xaggan maalintaasaan wareeg u baahanahay maalintaas diyaaradaha lay saaro halaygeeyo meeshaas geed ha lay saaro halayga soo lulo geedka korkiisa hala ii firaasho hala ii geeyo raka hala ii sameeyo wax geedaha lagu sameeyo waa codsi ku socda qof kasta oo iga nolol dambeeya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qabriga waa necbahayaan lay gelina